Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network fadlan haddaad tahay qof nagu cusub waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe ii saartid sidoo kale gambaleelka aad furitid si ay kusoo gaaraan muuqaalada aan soo dhigi doono sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabta ku xiran channelka oo had iyo jeer na garab taagan si uu channelkan u horumari lahaa in videogan maanta waxaan ku qaadanaynaa qaabka aad ugu daba tagi lahayd ama qaabka aad ugu gaari lahayd fariin aad dirtay طبعا waxaa dhici karta inaad fariin aad dirtay ama aad qoraal aad dirtay qoraalkaasna aadan rabin qofka inuu arko ama qoraalka aad qortay laftigiisaba uu yahay mid in khaldan oo error typing ku jiro ama qoraalka shakhsiga aad u rabtay mee shakhsi kale aad u dirtay mar alla markii aad qoraalka qofka aad u dirtid for example in tusaale ahaan waxaan leenahay assalaamu calaykum markaan u qornay haddatan saa arkeeno fariinta aan dirnay qofka aan u dirnay way u tagtay balse wili muusan fiirin inuu fiiriyay in kale waxaan u cadeynayo in qoraalka kor aan ku qornay assalaamu calaykum ta labada tig saaran waxay noqotay buluug marka midda hoosena still in muusan fiirin mar alla markii uu whatsappkiisa galanay automatically sidaas ayuu ku arkayaa marka in case in qoraalkan aan diray wuxuu yani error typing ayaa iga dhacay qofkiina ilaa hadda muusan fiirin waxaa awood u leedahay inaad in qoraalkaas aad dirtid mar labaadna aad u dirtid ama haddii oo qofka aad qoraalka aad u dirtay yahay qof aad qoraalkaas aad ugu talgalin by mistake oo qoraalkaas aad ugu dirtay automatically waxaa sameynaysaa inaad qoraalkaad aad kali garaysid markaa select garaysid late markaad dhahdid halkan waxaa ku haysataa saddex option inaad dhahdid cancel oo ah in maraba inaan tiro fariintan iskaga day ama inaad dhahdid delete for me waa kaliya aniga iga dir taasna waxaad u isticmaali kartaa mobilkaaga markuu kaa dansan yahay oo qof kale mobilkiisa ka isticmaashay fariinta aad dirtayna aadan rabin inuu ka ogaado delete for me ayaa leedahay kadib automatically qofka aad fariinta u dirtay wuxuu arkayaa in fariintaada sidoo kalena in qofka aad mobilkiisa ka dirtayna ma arki doono waayo adiga ayaa dhahday delete for me so optionka oo hadeertan aan usoo waxay tahay in delete for everyone waxay u taagan tahay labada dhinacba yani ka tir micnaheeda oo ah qofka aad u dirtana fariintan ma arkaya adna way kaa tirtirmaysaa marka maadaama aad rabtid in uusan arkin fariintan qofka aad u dirtay waxaad dooranaysaa delete for everyone markaad dhahdid fariintan way ka tirtirmaysaa labada dhinacba so hadeertan saan arkayna halkan waxaa ku qoran you deleted this message in fariintan adiga ayaa tirtiray marka qofka kalena markuu whatsappkiisa kusoo laabto wuxuu arkayaa in fariinta aad tirtirtay marka hadeertan aan tagno whatsappka kale fariinta waxaad arkaysaa the message was deleted in loogu soo qoray taasoo micnaheeda tahay fariintan waa la tirtiray yani in kumadadan soo gaarin yani araggeeda marka videoga xigana waxaan ku qaadanaynaa qaabka aad u arki kartid fariin walba lagu soo diro xataa haddii oo qofkaas oo tirtiro waadna ku mahadsan tahay daawashadaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu